markaad wehelsiisay naftayda wareertay kulan wacan dhegeystayaal mar kaleeto qaybtii afraad ee aad wada dhooreyseen waa qaybtii afraad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo luur jacayl oo aan halkeeda idinkaga sii ambaqaadno ayadoo kasii xiibis badan qaybihii kale aad soo dhegeysateen qaybtan afraad dhegeysi wacan guddoon wanaagsan tidhi waykan walaaci haystay daqiiqad ku waayey waqnii ku tagaayey kolkaa tidhi waykan walaaci haystay daqiiqad ku waayey anigoo walwalaaya qalbigu wadhanaayo hawaana jacaylku anigoo walwalaaya qalbigu walhanaayo otaan kugu weeday adaa i warabshay wadanka gacaylahaa wareegtay dhibiye hawaana jacaylku dabcan qaybtan waxaan ugu magac darnay suntii kalgacal ee lagu buufiyey wiilkii baaryar ah hadda suntaasi maaha suntii caadiga ahayd ee lawada yaqaan waa sun kaliya uu dareemi karo qofka wax jeclaaday marka qaybtaasi ayay nooga bilaabo doontaa sheekadeenna barni sheekayir kadib markay dhex martay waa iyada iyo baariya waxay u soo dhaqaaqday dhankii gurigooda asna gurigiisii ayuu u sii baxay baari oo aad muddo sidii ruux xibasho kalgacal laabtiisa muujinaysa ayaa markuu hoygiisii yimi wuxuu la kulmay eedadiisii hadaf baarto oo markaa dul jiiftay salli yar oo ay salaadii maqrib isugu diyaarinayso salaan kadib baari gurigiisii ayuu iska galay qubays yar kadib uu weyse qaatay asagoo kun jeer ku laabanaya weysada ayaa eedadiisii hadaf baarta ahayd la ta'adubootay ayadoo weydiisay waxaa inanku ku dhacay markaa wuu jawaab ku siiyey inuu ka fakarayay natiijada imtixaankan uu keeni doono balse taa waxay ka ahayd afgaabsi iyo oraha dambiyey ku siin oo kale markaabay hadaf baartana hoos iska tiri talow wixii dhacaaba ha dhacaane aan aragno wuxuu keeno markay sidaa isula hadashay ayay ku hadalgaabsatay wiilkaygiiyo waad ku najaxaysaaye waxba ha warwarin baaricaddo oo qalbigiisii ka dhawaaqaysa barni ayaa uu salaadiisii uu soo tugtay markuu aqalka yimi wuxuu istusay hadalladii maanta dhexmaray asaga iyo barni asagoo aad kaga helay ereygii ahaa baarigayga ayaa waxay ku noqotay fallaar cashaq oo wadnaha laga dhex dhigay barni dhankeeda waxay ka yaabtay maanta waxa ka qaldanaa oo uu hadalku ugu gaagaabinayay iyo xishoodka xaggeedii ka soo haleelay markaabay istusisay inay talka ka wacdo ayadoo doonaysa inay ogaato waxa jira baari markuu arkay inay barni tahay ayuu isgaran waayey heer wuxuu gaadhay inuu ku jiro taleefanka baqdin uu ka qaba dhankeeda maaha baqdintaas inuu nicib yahay balse jacayl uu tabar u lahayn inuu u sheegto ayuu la gariirayay waayo baaryare weligii si dhaba waxba muusan u dareemin hamuun caashaq baari wuxuu sameeyo markuu garan waayey ayuu ka qabtay sidii nin layidhi dhowaan waa lagu dilayaa taana waxay qiraysaa in baaryare uu jacayl xishood ka awood badan uu helay isla markaana uu qabtay aan ku hamiyey inaan ku helo axaan aragaaga haybinayo
anoo ereygaaga u heelan dartiye anigoo ereygaaga u heelan dartiye maxaan ka hakaday qoladayo istaagay markaadii hortimi maxaan hadli waayey maxaan ka hakaday qoladayo istaagay markaadii hortimi maxaan hadli waayey kadib markuu taleefanka qabtay intuusan hadal celin ayaa Barni la soo aadintay ayadoo leh baarigaygiyo maxaa dhacay taleefanka waxooga waad igu hagaratay malaha sheekadii ayaan idinka qasay adigiyo dumaashidii asna waa kii aad taqaaniin wuxuu ku hadal gaabsaday asagoo laga dheehan karo codkiisa xishood rageed ayuu yiri may dumaashi ma jirtee waxbaan diyaarinayay Barni oo inta badan kaftanka aad u taqaano oo ah dadka iska kaftamo ayaa ku hadal celisay ayadoo iska jecelaysatay inay fowdayso ku tiri casharo wanafsi ma diyaarinaysa ereyga kolkuu afkeeda ka dhammaan ayuu Baari qadkii ku jiray xishood uu qaba dartii waayo Baari muusan ahayn dadka jacaylka la fudud yahay ee maada iyo maalaayacniga ka dhigtay inkastoo markiisii hore ay caadi lahayd ereyga jacayl waayo asaga awood uu u lahaan waayey inuu waan ku jecelahay ku dhaho haddana kaaga sii daran Barnidii uu jecelaa inta soo wacday buu ku jiray cakuyay ciil badana Allah dhegeystayaal waxaa halkaa inooga dhan qaybtii afraad ee sheekadii xiisaha iyo kalgacalka xambaarsanayd ee la magac baxday laab mid ah iyo lur jacayl intaynu dib u kulmi doono qaybta xigta ee sheekadan waxaan idinkaga teginaa abwaanka Soomaaliyeed ee la magac ku caanbaxay alifaada sheekooyinka mugga iyo maamuuska leh hadda waa abwaankeena ismasi tawsi oo idin leh waqti wacan iyo dhegeysi wanaagsan noqona qof sheekadan ka sheekeeya ha noqon qof sheekadan looga sheekeeyo ha noqon balse noqo qof sheekadan looga sheekeeyo waayo sheekadan micnaha muggaya iyo maamuuska ay ku fadhido ayaa noqon doonto mid asal ah marka waxaan idinkaga tegaynaa intaan hadalka idinkugu badin sidaa iyo nabadgelyo nabadiino iyo nolol kulanti oo xiiso badan Kiri way kan wala ay iskii dadku